السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا دمانتين كنا صور هذا كلن كلا فيديو كلا عشر كلا يو حرفات كلا عصوب يو هذين شو كلا ودقنا قاب عصوب أو نوجهرتين كرنا نما كان لو يقانو أتاك ريسكا. حرفة وحربين نوجه فايديستو مرة قار كود واحد عذا qaabkay ku imanayso attack noocan inuu kugu sameeyo qofka attackerkii waxay ku timaadaa mararka qaarkood in aad tiraahdo website-kaaga soo geli qofka user-ka inuu soo geliyo aad rabto aan ku raahdo sawir ama sawirkaasi mid isaga ha noqdo ama mid kale ha noqdo ama mararka qaarkood waxa dhacdaa in uu sameeyo qofka maxay ahayd website-kiisa kale inuu ku yiraahdo soo geli word oo kale pdf oo kale iyo documents lamida haddaba attack noocani wuxuu ka dhacaa mararka ay waxyaalahaasi dhacayaan oo kale waxaana loo yaqaanaa file upload vulnerability ayaa loo yaqaanaa ciladan waxa ku imanaysaa website-kaaga markaad tiraahdo user-ka soo geli sawirkaaga ama pdf ama word soo geli markaad tiraahdo waxa uu user-ku soo gelin karaa wax kale oon ahayn waxaad adigu ka dalbatay tusaale ahaan oo kale shell ayuu soo gelin karaa deetana uu ku ataagarin karaa website-kaaga halkan maanta u socdo ayaa waxay tahay attacka noocan sidoobe u dhacaya inaynu isla fahanno ayaa qurux badan markaa waxaan rabaa website-kaygan testingka ah ama website-kan loo yaqaano serverkani loo yaqaano metasploitable-ka ah inaan ku tijaabiyo waa mid safe ma galayo mid aanan awoodiisa aanan lahayn oo kuma tijaabin karo xirfadda noocan ama attacka noocana waxaan macquula inaan kala kulmo waxyaaba aan banaanayn tusaale ahaan oo kale aan kala kulmo sida caqabado xabsi oo kale in lagu ganaaxo oo kale ama waxyaalo lamida markaa si aynu ugu tijaabino xirfadaheena waxaynu u baahannahay meel safe oo aynu ku tijaabin karno haddaba metasploitable wuxuu ka mid yahay meelaha ugu wanaagsan ugu badan ee inta badan la isticmaalo dadkeena ardayda ah ee raba xirfadaha attackan hacking-ka inay kor u qaadaan waa meel ay xirfadooda ku tijaabin karaan sidaas oo kale ayaan anigu iminka rabaa inaan xirfadan ku tijaabiyo loo yaqaano file upload vulnerability ama u nugulyaashiyaha file kasta uu u nugul yahay website-yada qaarkood okay kani ayaan gelinayaa password-ka ayaan gelinayaa waxaan ka wadaa username-ka iyo password-ka ayaan gashanayaa already inkastoo iga sii jiray haddana password-kiisu waxa weeyaan password weeyaan okay sidaan markuu igu soo furmo waxaan tegayaa meesha aynu ku tijaabin lahayn file upload vulnerability-ga hor intaanan u gelin tijaabada noocaasa waxaan rabaa security-ga inaan ka dhigo mid aynu isla fahmi karno okay haddaba saad halka ka arkaysaan sometimes marka qaarkood waxaa dhacda in website-yada aad isticmaalaysaan laydin yidhaahdo soo geliya sawir pdf waxyaalo lamida waxyaalaha lagu leeyahay soo geli marka qaarkood wuxuu attackerku gelin karaa waxaan ahayn waxa loo dirsado tusaale ahaan oo kale shell ayuu gelin karaa haddaba waxaan rabaa imika inaan sawir soo geliyo sidii normalka ahayd sawir baa laga diray sawirkayga ayaan tegayaa deeto picture-kan ayaa iska soo gashanayaa deeto markaan soo geliyo upload ayaan leeyahay saad halkaa ka arkaysaan upload successfully ayuu leeyahay okay markani waa sax wax kale oo attackina maan samayn keliya waxaan soo geliyey sawir ayaan soo geliyey haddaba mararka qaarkood waxaa dhacdaa qofka attackerkii sidan oo kale inuu u soo geliyo waxyaalo aan habboonayn qaabka looga faa'iideysto ama qaabka xirfadaasi la isaga taxadaro oo loogana ilaaliyo website-ka mar kale ayaynu ka hadli doonaa laakiin attacku qaabku u dhacayo ayaan rabaa imika inaan idin tuso soo waxaa jira tool loo yaqaano wifli ayaa jira toolkaasi waxaa lagu sameeyaa shell ayaa lagu sameeyaa shellkaasi ayaynu deetana soo gelin doonaa serverkan ama website-kan aynu soo gelin doonaa okay qaabkee loo sameeyaa haddaba ugu horeyn markaad wifli tiraahdo waxaad gelinaya password-ka shellkaaga aad hadhow toole aad ku furi doonto deetana waxaad gelinaya shellkaagu nooca u ekaanayo magaciisa deeta shell markaad tiraahdo saynu wada ogsoonaa information gathering-ka markaynu soo sameynay waxaynu macquula inaynu kusoo ogaanay serverkani imika inuu keliya uu ka support garaynayo language-ka loo yaqaano php-ga sidaasoo kale shellkaan sameynayna waxaa khasaba inuu noqdo serverku language uu fahmi karo soo waxaan ka dhigayaa php inter ayaan leeyahay
sorry weekly han tago markastii waxaan idinku waaniyaa inaad booqataan maanka ama help aad tiraahdo website qaabka loo isticmaalayo commands-ka ama toolska ku dhex jira Kali Linux-ka imika waxaa macquula inaan ka tegay hal option ayaan ka tegay optionkaasi waxa uu ahaa generate inaan yiraahdo weekly data generate ayaan leeyahay waxaan u bixinayaa shellkayga ama passwordkiisa hadhow toolaan ku gali doono waxaan ka dhigayaa 1234 shellkana waxaan u bixinayaa shell 99.php intaa markaan sameeyo enter ayaan leeyahay shellkayga imika waa la sameeyey password waxaana lagu sameeyey 123 halkee la dhigay laakiin waa su-aalis mudan wuxuu yaalaa uun halkan imika aan joogo waa desktopka dushiisa weeyaan magacaan ku qoray wuxuu ahaa shell 99.php ayuu ahaa sadarka ka arkayso shellkayga waa halkaa dul yaala desktopka ayuuna dul yaalaa okay waxaan kusoo noqonayaa website-kii waxaan leeyahay waxaad soo gelisaa sawirkii soo geli laakiin sawir markan ma gelinayo shellka ayaan gelinayaa desktopka halkuu shellkii yaala ayaan tegayaa shellka ayaan ku upload garaynayaa shellka markaan soo geliyo upload baan leeyahay halkaa maxaad ka arkaysaan waxa uu leeyahay halkaasi successfully uploaded ayuu leeyahay macnaheedu waxay tilmaamaysaa shellkii aan soo geliyey in maxay ahaydana uu server ku qaatay ama systemka uu qaatay haddaba shellkana uu qaatay isaga waxay u xisaabsan tahay ama qofkii aad sameeyo website-kani kamuu taxadarin ama muu sameyn waxyaabo lagaga hortegi karo haddii qofku waxa aad u dirta maaha in wax kale uu soo geliyo ka jooji ama caqabado noocaas oo kale oo qofka userka ka hor istaagaya inuu wax kale soo geliyo waxaa macquula inaanu samayn sidaan haddaba uga faa'iidaysan karnaa shellka aynu gelinay serverka ama website-ka waxaynu uga faa'iidaysan karnaa waxaynu soo furanaynaa terminalkeena waxaynu leenahay isla weekly-ga ayaynu soo kicinaynaa weekly-ga markaynu soo kicino waxaan tegaynaa locationka uu yaalo shellkeenu sidaa markaad u aragto locationka uu yaalo shellkeenu halkan waxa uu naga siinayaa path ina hagaya ama command ama aan idhaahdo query ama wuxuu ina siinayaa message aad u useful ah markaynu joogno dhinaca website-ka waxaynu leeyahay shellkaaga waxaa la geliyey hackable folderka ku dhex jira ee loo yaqaano uploads waxaana ku qoran shell ayaa ku qoran haddaba folderkan halkuu yaalaa seenad ku ogaan kartaa waxaad ku ogaan kartaa halkan imika aad joogto waxa weeyaan waa wv waxaan ka wadaa wvwa weeyaan soo ma deetana waxaynu leenahay halkeebaa la dhex dhigay waxaa la dhex dhigay hackable upload iyo magacii shellka soo haddaba saynu kusoo helno waxaynu leenahay waxaad tegtaa baadka ah hackable okay hackable markaad tagto maxaad arkaysaa halkaas folderkii uu inoo sheegayey haddaad halkaas si fiican aad u arkaysaan uploads shell ayaa kusii xiga soo markaan tago imika hackable haddaan tago hackable haddii aan tago waxaad arkaysaa folderkii ay uploads ku qornayd folderka dhexdiisa haddaan tago shellkii ayaad arkaysaa shellkii oo ay ku qoran tahay 99 shellka waxaynu soo bixinay wuxuu ahaa shell 99.php ayuu ahaa soo ma okay soo waxaan leeyahay shellkaasi macquul ma yahay imika inaynu ka dhex rangarayno isla meeshan aynu joogno yes waynu ka dhex rangarayn karnaa wax eraray muu soo saarin taa micnaheedu waxa weeyaan waa saxanahay meeshan aan joogo okay maadaama wax erar ii soo saarin shellkayga si fiican ayaa loogu guuleystay in lagu upload gareeyo serverka ama website-ka waxaan soo furanayaa terminalka waxaan leeyahay weekly markaan idhaahdo ka hor intaanan tegin waxba aan idhaahdo waxaad isiisaa aan idhaahdo show help si aan u helo meesha aan maxay hedene u baahanahay oo ah inaan galo shellkayga aan dhex dhigay website-ka weekly ayaad leedahay weekly weeyaan magaciisu weekly markaad tiraahdo waxaad odhanaysaa ood gelinaysaa waa baadka uu shellkaagu yaalay baadka uu shellkiinu yaalay haddaad xasuusato wuxuu ahaa dvd markaanu idhaahno sidii erarka halkan inooga soo baxay hackable uploads shell ayuu ahaa
deeto waxaanu sameynaynay inagii soo aragnay halkuu shalkeenu yaalay deeto baadkiisii oo dhammaystiran ayaynu gelinaynaa. sideed ku ogaanaysaa? waa inagii nidhi waxaad ku ogaanaysaa ugu horreyn haddii aad folderkaad joogto aad dib uga noqoto maxaad arkaysaa haddii aad tagto haakibalkii aynu arkayno oo kale maxaad arkaysaa? waxaad arkaysaa laba folder ay ku qoran tahay. sometimes website-yada qaarka ah ahayn kuwan aynu ku tijaabinayno xirfadaheena way ka dhacdaa waxaan halkan imika aad ku arkaysaan inaad website-kii aad si toos aad u aragto haddii aad directories-kii aad toos aad u tagto. haddaba shalkeenu waxa uu dhex yaalaa waa kan shalkeenu. baadkan ayaynu u baahannahay. haddaba intan oo lagu daray magaca ayaynu u baahannahay. magacu waa magacee? waa magaca shalkeena weeyaan. okay, intan ayaynu soo qaadaynaa waanu soo koobi garaynaynaa. data bath ayaynu leenahay. shalkeena magaciisu wuxuu ahaa 99.php ayuu ahaa. intan markaad aragto ama intan markaad geliso waxaad leedahay inter ayaad leedahay. inter markaad tiraahdo website-keygii toos aan ugu noqdo. website-keygii waa kan, halkii aan joogayna waa tan. command-keygu successfully connection-kii waa ii abuuray, connection-kii waa ii furay. connection-kii imika maxay si toos ayaan ugu dhex jiray. sin ku ogaanayaa connection-kii inaan ku dhex jiro? pwd haddaan idhaahdo command-kii caadiga Linux-ka maxaad arkaysaa? waxaan joogaa var www dvwa hackable uploads intii aynu ka arkaynay url-ka dusha. haddii aan serverkan attack aan ku sameynayay oo bartan ka rangaraysan halkaa aan tago ma ka soo dhex helayaa faylka se baadkaasi baatruna ma yahay? waxaan tijaabina haddaba kani baaswordkiisa ayaan gelinayaa iyo username-kii msf admin ayaan leeyahay. halkan uu shalkaygu dhex yaalo waa var cd aan idhaahdo var www saad hoostaa yar ka arkayso var www ama halkan aan soo idhaahdo pwd. markaan idhi pwd command-kan waxaynu u isticmaalnaa markaynu Linux-ka dhex joogno print working directory. xaaladda ama directory-ga aad markaa joogto ayuu ku siinayaa baadkiisa. soo baadkan haddaan tago waa inaan ka helo shalkii. waa shalkii meeshii uu yaalay weeyaan. so waa var www waxaan filayaa dvw hackable okay uploads ls haddaan idhaahdo waxaad arkaysaa shalkii inuu yaalo halkaa ay ku qoran tahay shell 99. haddaba aan kusoo noqdo waa attacking-keenii aynu ku guulaysanay. haddii aan halkan aan joogo dib aan uga baxo macquul ma tahay? yes waa macquul. pwd haddaan idhaahdo imika mid ayaan dib u baxay. markii hore uploads ayaan joogay, hadda waxaan joogaa hackable. macnihii waxay tahay attack noocan haddii aad hesho ama aad aragto ama website-kaagu noocan uu nugul yahay waxaa 100% ay u badan tahay website-kaaga iyo server-kaagaba inuu qofka maxay ahaydeen attacking ka sameeyo uu guud ahaanba la wareegayo. waxaan idinku tusayay video-ga kooban qaabka uu dhaco attack-ga yar simple-ka ee aadka u fudud. waxaan filayaa qolooyinkiina websites kalena inaad ka taxadari doontaan. qolooyinkiina xirfadda security-ga ama xirfadda ay u leeyihiin qaybtan security-ga kor u qaadayana inay noqoto xirfad ay maanta wixii ka dambeeya ay xisaabta ku darsadaan ama ay noqoto xirfad ay yaqaanaan. okay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.